معلم وريقة بروفيسور انتو شغالين وقوين معلم وريقة حوالي نيكي جامعات كستا يا او عانيس وحلو لي عاولة كركابحي بقول كنو شيلين بالسينية مركز waxaan xusuustaa oo kale professor Clinton baa habeen loo yeeray markaas waxa la yiri isagu shirka looga yeeray ninkii lobbyista wuxuu yiri 500,000 hala si waa wax ka yar hal saac ama laba saac believe me Gandhi caawa hadduu taa ku adkaado oo ku akaysan lahaa hadduu ka soo baxay laynkaas saas kale ahaan lahaa marka inaan ogaanaa qiimadda uu leeyahay cilmigu Gandhi waxaa kaloo sameeyay midnimada qaranka maanta u wada hanqal taagayno iyo dawladnimada qaranka hadda u taagayno ee isu keentay labadii kooxeed ee midna uu ahaa maxaakimtii midna uu ahaa baarlamaankii hore main buu ka ahaa founder buu ka ahaa waxaa kaloo Gandhi ahaa qolada civil society-ga la yidhaahdo oo laf dhabarkii noqday Soomaaliya marna bixi waayey ka tegi waayey xamar lagu laayay Cabdiqaadir Yaxyo kale markaan soo xusuusto waan garanaysaa waa ragii saas kale muulamada Ilaahay badbaadiyay marka ragaas kale ma taana founder buu ahaa marka Gandhi waxaan leenahay hadii Ilaahay dadka ku soo celiyo oo qorbii ka soo noqotay intaana aad wadato waxaad doonaysaa Allah ku guuleeyo intaas aan ka baxaya may waxaan ku soo noqonayaa wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga saraakiisha dhan waxay u soo qataageen waxa weeye waa magacaas أنا وزير كاشاني وأنا صورنا ولا شير كرينيا وأنا كل فرح سنة هاي واحد وزير كاشاني وهاد بنانك تشوفه إنه تشراني يصير وحول هذا مركي شاف هالكلام سمي دود وإيش بدشه بربلين ما هذا وزير ما دوايسا أم وزير كله بدلي أم بنانك كله دي مركو هذا أنا شفل كل سنة دعيم وزير الجديد كيوها هذا أنا شفل بعد عي حلبان وي marka wax dib ay leedahay inna waxaynu moodayna qofka marka meel laga qaado in la destroy gareeyay ama laga saaray fiilkii ama laga saaray shaqadu gabanayo still Gandhi maanta uu fiican yahay inuu qabto dalkii iyo ummadii waana xildhibaan wuxuu had shaqadu hadda inuu qabanayaan waa shaqo qaran dawladda hadda jirtu la jira against kuma waa dhinac kan mid dawladda socota maanta inta hadaan ka baxo Professor Gandhi Minnesota waxaan joogaa anigu muddo badan magaaladan waxaan hadda jeertay jaray marka qaarkood shirarka oo levelka oo ama qaranka noqdeen ama ku dhow noqdeen rajadii shalay jirtay 5 sano jirtay Minnesota waa ka fiicantay Abdullahi Guuleed Saciid Faahiye Abgaalo Abdullahi Xasan kullihom aqaanaaniga أبيكر وأنا كل جود مرك كل جود وتاجيهم شقادي أنا والله شقيا سير إيه قلنا كل احترام مد أنا توصلون هم يشرو شقوي قبنا يان والله فلور وينهم بدل لكن ما قرينا حالنا وارهر هبل لكن إنك لو قبتها قرن for example هدي لو ده هذا شقة لثلاثين أيام عبد الله يقول إذا مسعيد فهي أما إتك سمية كمدي فهم بالو بحنا وأنا لقاضية تم حكى في عن مرك مريان هذه تركب بدل لو قبيل وشيموي حتى مركز لسوي مادو أنا مالها لسوي مادو مرة بيجا هذلا عن خصوصا أنت هداني من هاي وطبعا كبدا كل اللي يجي أنا قبض هرد بخير لفنا بركيوي مركز حنو رجيني يقول بقول رجيني يا هوات كيستين تتكنوا حتى الحقبة تنو وكعوني حتى الحقبة تنو وكعاي ده تبروبلم حتى الحقبة تو وكعاي حتى الحقبة نينا كبسيدر مركز وكلشر وحن رجيني هنا يقولوا القادتان ومدى الصوماليات dadaalkii asaga ku sii wadaan waxaan ku soo noqonayaa hal shay intaan Gandhi u yeerin dal Professor Gandhi ummadda Soomaaliya waxa ka dhoon hogaankii tihi bay ku jirtaa buuq baa ku jira cid kasta oo xun baa adeegsanaysa qofka fiican ma ba arkaanba haddii arkaan wuxuu arkaa qabiil buu arkaa ummaddu way fiican tahay hogaan baa ka maqan that point waxa la leeyahay inuu dhawaaqo midnimadii هذا أنا كذبية. dadkani waxay ka doonayaan laba shay kow shaqaad u socotaa gaar oo wada oo ku rafaaday aan kula joogaa marka la hadlays dadka qaarkiis kulli waxay fiil gareynayaan oo waliba shaki wada waxay leeyahay tolo dagaalka uu hadda wado ka wada ama jubooyinka jubada hoose iyo jubada dhexe iyo gado
tolo muxuu ku dambayn doonaa marka waxay arki jireen markii waxa la qaado in la weeraro dagaal iyo qabiil iyo balaayo kala wada weeraraysa wuxuu yidhi confident aan ku ahay inaan soo keenay goolka inaan dhalin karo federalism aan hadda rabo awr mar rabin igu yidhi waxaa kaluu yidhi qodobka la yidhaahdo 4.5 waa soomaali burburkeedii waxaa loogu talagalay soomaali ku burburiyo ma rumaysni buuri maxaa yeelay ninaan wax lahayn baa bursanaya nin wax lahaan waa laga bursanaya laakiin haddii gobolkii loo noqdo oo degaankii loo midoobo oo ninba qaybtiisa uu qaad ku darsado oo power share uu yimaado dee nin lama xoogi karo markaa gobolkii oo dhisan hadduu ka qabo federalismka qayb wuxuu helayaa xaqiisu helaya marka taasna waa wax weyn marka taana waa qodob kale waxay kaa doonaan qodob kale waxa weeye war midnimo wadadii loo mar lahaa keen tell us waygaan u mar lahay annaga waa naga dhunsan tahay waa la anahay disoriented baan nahay waxaan hogaaminaya qabiil xabad dadni xunaan haysa waxaan kaa codsanaynaa labadaa qodob kaad hadda wadana caddee ka midnimadana caddee jaal dhow